hamogan oo ha ka maqnaan Marwo Beauty and Cooking. Marwo waxaad ka helaysaa wax kasta oo ku raali geliya, hadday tahay qado, quraac, casho, casriye iyo qurxinta haweenka. madashu waa madashaada. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saxaabta reer Marwo ayaan idin salaamay meel kasta aad joogtaan, waqti kasta idin tahay iyo xilli kasta oo aad joogtaan. uqdinka kasoo tuuraysaa uqdi halkan waxaad ku dalaacaysaa saa u taqaaneenba waa khibradda isla garanayseen. anigu saddexdan la-aantood ma noolaan karo. waxaan ku dalaacaya bariiskii baan inaan kasoo tuurayaa iyo wixii lagu cuni lahaa insha allah oo 1 iyo 2 ya oo maasha allah cid kasta ku casuumi kartid. asxaabta reer Marwo Beauty meel kasta aad joogtaan bakal iyo laabaan idin leeyahay. one love waa ku mahadsantihiin soo dhaweyntiina. asxaabta cusub ee subscribe samaystay ee igu cusub waxaan leeyahay welcome. gurigiina weeye hasmakeynina وإنتاج كوري كاينة بس ولا عشنا بنجيب شيء يعني كسر كان بلكي هلا السود داير دغري عاود أنا كسرت الساعة ليش للسعود ونحسن هنا واحد روح يلا نسجل الجريب هاي كم حيجي كده حواشات فيه هاي تسوي هنود حاجة لهنود خمون اللهم صل على محمد. حواشات من الشيبية halkanina waxa weeyaan iyadana sidoo kale waa hay qorfo iyo filfil. intanina waa toon maraq digaag intaasaan ku darsan doonaa insha allah. isla socodinaa saxaabtayda reer Marwo waa aragtan bariiskeeni حواشاتنا حتى عيون صاروا كفي. هاي العركة دان قنصيدو كالصباحة ما شاء الله إنا بعادي من قنايف بريس إير أمعان وخضرة ديسية ويحي سيبا هوستكو هايستا يا لابتي كلاوة ونبينا وذاك دونا إن شاء الله يدنا فضلا عركتان 1 iyo 2 baa leedahay 1 iyo 2 macaan ku kaga daray quruxda markuu bislaado. inuu digsiga kaa qabsado maaha. sidoo kale halkan waxaan ku haystaa biyo kulul. bariiskan karsanayaa ma badna waana bariiska leedahay yaasmiin bismati yaasmiin wama bariiska leedahay furfur yar oo fiican ayaan ka rabaa. bariisaan jilicsanayna adkayna sidaa loola socdo iyo markuu inoo soo bislaado. saxaabtaydan jecelahay bariiskeena waa kan inoo soo bislaaday waan ka soo qaaday dabkii waan ka baktiyey. wax yar markuu karay ee uu biyihii soo bursanayay bacdan ayaan ku xidhay aluminiumka ayaa saagu daboolay. waad ila aragtaan qof walba uu yaqaana aluminiumka sida loo saaro. bariis heer sare oo furfuraayo ii soo noqday waan gurayaa markaas. waxaan sugayaa intii wixii lagu cuni lahaa wax yar kadib aan isku diyaarin lahaa. dee wada socod wanaagsan markaa bariiskii saas ayuu soo baxay quruxda badan leh deednaba caadi ma kor iyo hoos. asxaabtayda aan aadka u jecelahay halkan waxaan ku haystaa xawaashad fara badan. waxaa koow ka ah waa basbaas xabashi, kabsar, toonti qalalayd, toon iyo sinjibiil aan isku shiiday, maraq digaag, geed adari iyo filfil. sidoo kale halkan waxaan ku haystaa waa xamarta dhiiqada ah. xamarta dhiiqada aad bay ugu wacan tahay hilibka ama digaaga ama kalluunka. anigu caawa kalluun ayaan ku samaysanayaa. اللهم
maxamed waxaan ku darsan doonaa 2 malqacadood oo liin dhanaan ah. liintan isticmaalayna waan idinla wadaagi doonaa. waa liin aan wax kala lahayn, idina sidoo kale dukaamada ayaa iibiya. asxaabta wad aragtaan dukaankaas ayaa iibiya ku qoran Neto, halkaas ka heli kartaan. haddaan idinka dabageeyo dacarta asxaabtayda igu xidhan ee halkan degan, waxaa ka heli kartaan dukaamada Hindida ama Indhayarka. dukaamadaasa laga helaa badiyaa. inta markaan isku qasto Allahumma salli ala Muhammad. waxaan halkan ku haystaa kalluunka la yiraahdo salmon ee bilaa lafta. waayo caruur ayaan siisanayaa aad u yaryar, kuwaas baan lafta u diiday. marka alaabtan ayaan dhex gelin doonaa, mana shiili doono oo saliid ma arki doono kalluunkaasi. waxaan gelinayaa ofinka xagga hoose. isla socod wanaagsan saxaabtaydan aad baa u jeclahay. meel kasta joogtaan iyo goor kasta idin tahayba waxaan idin leeyahay reer Marwo Beauty, ha moogaanina oo ha ka maqnaanina Marwo. anba idinkama maqliyo, idinkuna ha iga maqnaanina. dawooyinkaasaa saxaabay kalluunkan isticmaali doonaana waa kalluunkaas ayaan isticmaali doonaa. hadduu allahu idmo kalluunkaas ayaan isticmaali doonaa. isla socod wanaag. sidaas ayaan u dhex gelin doonaa kalluunka. waad aragtaan sidaas ayaan u wada marinayaa. dhanaankaay saas u qaadanayaa. wad la socotaan baan malaynayaa. halkan ayaan ku safi doonaa haddii allahu idmo. isla socod asxaabay kalluunkeennii halkaas ayaan kusoo goray. saad u aragtaanba kalluunkeennii halkaas ayaan kusoo diyaariyey. hadda sidaas ayuu ofinka ku aadayaa. waad aragtaan wuu diyaarsan yahay, wax ka dhiman male. halkan waxaa ka hooseeya waa kii gireelka. waxaan rabaa wixii ka da-ay inay hoos unu da-aan ee aanu isagu iga qoyin. saliid male, waxbana male. sidaa ula socda asxaabay. wataa qadadeennii markaan soo diyaariyey. sidaa quruxda badan laayay kusoo baxday kalluunkii, bariiskii, muus, basbaas. waxaa kale waa yogurt iyo aan isku qasay. waayo aniga aad baan u jeclahay yogurtka. halkan waxaa ii yaala koob liin ah. liinta anigu aan isticmaala waa bambalmuus. ha moogaanina waa ka maqnaanina Marwo Beauty and Cooking. madashiina weeye. subscribe-ka, like-ta, commentiga iyo share-tu waa xaqiina. videoga xigeenteenu isugu imaanayno. waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo cimri dherer iyo cibaado suban. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.